السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا عشركي أفراد كورسدينا جوجل أدس. حدي عدن صوت داوان مقالة دي هوري فضلن جوجي صوت داوا عشرة داس سي عشر كان أو معنا كوغول هذا مقال كمان توحان كبران دونا وحلو يقانو بيد استراتيجي وامد كميدا عوانا دا ugu muhiimsan ay tahay in aad si fiican u fahantid. haddii bid istaraatiijigaaga ay qaldan tahay waxaa suurtagal ah lacagta ku baxday xayeysiintaada Google-ka boqolkiiba boqol in ay khasaaro noqoto. kasoo qabo waxaa laga yaabaa inaad $1,000 ku bixisid xayeysiintaasoo haddii ay qaldan tahay bid istaraatiijigeeda lacagtaas waxay noqon kartaa boqolkiiba boqol khasaaro. okay si aan khasaaradaas u imaanin haddaba maanta waxaan isla baranaynaa wax la dhahayo bidding. okay erayga bid markii terminology-ga aan soo baranaynay waxa waaye waa amountiga ama wax ku baxaayo qofka marka uu la falgalo xayeysiintaada hadday noqoto click conversion hadba waxay ku xiran tahay nooca bidka uu yahay. okay had tusaale haddii aad xayeysiin sameynaysid waxaa laga yaabaa marka koowaad inaad ka dhex weyso waxyaabo aan meeshan ka dhex arki doontid. markaas marka waxaa fiican kow inaad doorato click. marka aad click doorato xayeysiinta markay ay socoto ama xayeysiintaada koowaad xayeysiimaha ku xigo waxaa awood u leedahay in aad update gareyso oo aad doorato hadba bidding kala duwan. okay hadda waxaan joognaa campaign setting-ka qaybta bidding-ka markaa imaano waxaan rabnaa inaan barano bidding-ka nagu habboon si xayeysiinta lacagta nooga bixaysa aynan wasti u naqanin. okay halkan waxaa meesha hooseys mar walba waxaa kaaga soo baxayso waxaa la dhahayo bid strategy directly sometimes not recommend ku qoran. marka aad halkaas ku dhufato aad halkan ku dhufato waxaa ku soo bixi doona qaabkan ay ku soo bixi doontaa. okay marka ay sidaa ku soo baxdo waxa aan baranayna maanta dhan waa intaan bidding-ka ama bid strategy waxaa loo qeybiyaa labo, mid loo yaqaano automated bid strategy iyo mid loo yaqaano manual bid strategy. manual waxa waaye wax walbo boqolkiiba boqol adiga controlaya lacagta ku bixaysa kiligta waxna ma ka ziyaadayaan wax ma ku nusqaamayaan qiimaha adiga qortay ayaa qofkii kilig ku siiyo ee lacag kaaga bixi doontaa. okay waxaa lagu recommend gareeyaa haddii ad account cusub aad sameyso xayeysiintaada ay bilow tahay link kilig soo dooratay ugu horeyn waa inaad ku bilowdaa xayeysiintaada manual bidding aad doorataa qaybta manualka. markii aad manual bidding doorato xayeysiintaadana ay bil tusaale ay socoto ay hesho conversion maalin walba intaas of conversion ay hesho macnaha conversion waxaa loola jeedaa ama dad ay wax iibsadaan ama lead ay sameeyaan ama form ay buuxiyaan hadba waxay tahay conversion kaasna uu save gareeyay waxaa la rabaa inuu save gareeyo conversion tracking ama kii save gareynayay actionka ka dhacayo website-kaaga bacdeen ayaa waxaa macquul ah inaad usoo gudubtid automated bidding. iyaga naftirkooda ma xumo laakiin markaas ayaa waxaa la rabaa automated bidding waxaa usoo gudbi doontaa markii ay data hesho maaragtay magaciisii ad accountiga ama macnaha xayeysiintaada markii data hesho kadib ayaa waxaa usoo gudbi kartaa automated bidding. okay manual bidding haddii aan sharaxaadeeda si fiican usii ta'kiidino waxaa waaye waxaa si boqolkiiba boqol controleysaa qofka kilig kusoo siiya halkaa lacagta ku bixi doonto. macnaha tusaale manual CBC marka aad doorato haddii aad dhahdo qof kasto hadduu soo kilig gareeyo 0.02 ha iga baxdo oo kale qiimahaas ayaa ku bixi doonto. laakiin sometimes haddii aad iska doorato waxa la dhahayo maximize conversion oo kale akoonkaaga cusub haddii aad maximize conversion aad doorato waxaa dhici karto lacagtaadoo dhan inay ku baxdo hal qof oo conversion sameeyay hal qof ba haddii lagu keenay lacagta dhan inay ka qaataan. soo marka waa inaad taxadir badan sameysaa mar walba ku bilow manual CBC. okay manual CBC marka waxaa dhihi karnaa waa manual bidding waa midka adiga aa xukumaysid. okay haddii aan usoo laaban marka kaas waa fahanay
qeybaha kale oo loo yaqaano automated bid strategy midka ugu horeeya waxaa la dhahaa target CPA. CPA waxaa laga soo gaabiyey cost per acquisition. Okay, marka ama cost per action. target CPA marka iyadana waxaa waaye waxay xooga saari doontaa inay maxaa la dhahaa actionka ama costiga lacagta bixaysa badanaa waxay focus gareyn doontaa in la click inay xooga saarto. Okay, target CPA oo ah cost per acquisition mar walba bidkaas oo qofkii marka soo click gareeyo waxaa xooga la saari doonaa conversionka macquulka ah in la gaaro iyadoo la fiirinayo cost per action. marka waxaa la dhahaa target CPA waa iyadana midka ugu fiican marka la joogo automatic. midda automatic marka la joogo nooca ugu fiican waa target CPA. okay, waxaa kaloo jira mid la dhahayo target ROAS ama ROS waxaa laga soo gaabiyey waxaa macnaha noocan wuxuu xooga saaraa ama biddingkan wuxuu xooga saarayaa return on ad spending. dadkaas click gareeyay xayeysiintan waxaa leedahay tusaale waxaa rabaa inay ka soo laabato 1000 oo kale. tusaale waxaa leedahay 1000 hadaa dhahdo that means halkii dollar $10 halkii dollar oo iga baxo kale $10 halkii dollar iga baxo $100 inaan ku helo $5 iga baxday calaa qofkii waa inaan ku helaa $50. tusaale waxaa iga baxday intaas waa inaan ku helaa intaa. marka waxay xooga saaraysaa iyadana conversion value-gaaga oo dhacayo conversionka dhacayo in mar walba lagu target gareeyo maxaa ka soo laabanaya xayeysiintan. marka iyadana waxay u baahan tahay daato. marka iyadana oo ah target ROAS waxay u baahan tahay daato oo ah conversion tracking macnaha in xayeysiin hore ugu yaraan bil ugu yaraan isbuucyo ay ku socotay conversion oo ka dhacay waxay in uu qiimeeyo u baahan yahay lacagta oo xayeysiinta ka gashay alaabtaas ama macnaha ala qofkii value-ga uu kugu fadhiyo. tusaale halkii qof oo conversion sameeyo hadii $100 ka qaadanaysid wuxuu qiimeynaa conversion hadee dhacdo lacag intaasna xayeysiin ku bixisid maxaa ka soo laabanayo. iyadana marka waxa waaye waa automatic bid oo macquul. waxaa la dhahaa hadii xayeysiintaada ay bilow tahay waxaa ku fiican manual in isticmaashid. laakiin hadii muddo wax soo xayeysiinaysay target CPA iyo target ROAS waa labada ugu fiican. laakiin waxaa must aad u sii fiican marka xayeysiino badan la sameeyay ama aniga aan soo testi gareeyay CPA-ga. okay, waxaa kaloo jiro automatic bidding in maximize click aad dhahdo macnaha waxaa xoog la saari doonaa click muhiimadu waxa waaye click macnaha intaas qofaa ku click gareysay intaas xayeysiinta click siisay not wax kale muhiim ah conversion value waxa la sameeynaya. automatic bidding ka waxa kamid ah waxa la dhahayo maximize conversion. marka tusaale maximize conversion hadii aad dhahdo oo e-commerce aad tahay oo ay ku xiran tahay conversion tracking waxyaabihi dhan ay ku xiran tahay mar walba waxaa la focus gareynaa how many conversion. waxaa laga yaabaa in dad badan aysan click gareenin dad badan aysan landing page ka booqanin laakiin muhiimadda ugu weyn oo xayeysiintaas waxa waaye how many conversion waxaa xoog saaraysaa conversionka. okay, marka kanna waa si lamida conversion value ay xoog saaraysaa. marka dhammaan kuwan waa qayb kamida bid strategy. mid walba aad dooratana wuxuu leeyahay saameyn gaar ah. okay, marka the best waxa waaye waa manual in isticmaasho hadii akoonkaaga uu cusub yahay. waxaa kaloo fiican target CPA iyo ROAS. kan oo kale wuxuu ku soo baxaa marka ugu horeyso oo xayeysiin aad create gareynaysid. laakiin waxaa aad iyo aad u fiican manual CPC. intaas waxaan u maleynaa in faham badan laga qaadan karo. okay, marka tusaale mid kasta hadaa ku dhufto qaab gooni ayuu leeyahay. tusaale target CPA hadaa ku dhufto targetka kale waa qiimaha ku qoraysaa. waxaa leenahay tusaale $10 tusaale maxaa $10kaas goormee bixinaysaa waxaa bixin doontaa conversion oo kale waxaa bixinaysaa interaction in la sameeyo. hadii aad doorano ka soo qabo target ROAS waxaa leenahay tusaale marka mar walba meesha wuxuu ka sameyn doonaa recommendation. tusaale waxaa leenahay hadaa dhahdo ka soo qabo 5000 waxay ka tarjumaysaa halkii dollar $50 ku helaysaa meena
qiimaha marka aad ku qorto hadba ma la iska qori karo waxay qiimaha muhiim ku tahay maaragtay inuu soo akhriyo conversion ka meesha ka dhacay iyo waxyaabahaas haddii aad dhahno maximize conversion iyadana waa mid ka mid ah oo wuxuu xoog saari doonaa conversionka laakiin anaga hadda waxaa iska dooranay xayeysiinteena inta aad bilow tahay waxa loo yaqaano manual CPC marka tusaale haddii xayeysiintaada ugu horeysa aad ka weyso manual CPC xayeysiinta marka aad abuurto kadib ay waxaa soo gelaysaa qaybta campaign markaa soo gashid settingka markaa ku dhufato halkan ayaa ka arki kartaa macnaha ad groupiska cusub aad samayn doontidna automatically markii aad soo create gareynaysid waxaa kuu soo bixi doona qaybta biddingka doorashooyin kala duwan hadda tusaale marka haddaan inta ku laabano mar walbo qaybtan oo manual biddingka waxaa laga helaa hoos tusaale meeshaas waxaa ku qoran maaragtay or select bid strategy directly not recommended oo ku dhaha laakiin this is waxa waa midka ugu fiican marka halkaas ku dhufano waxaa noo soo baxayo labadaas qayb oo ah manualka iyo qaybta loo yaqaano automatic marka xayeysiinta aad sameynaysid waa muhiim mar walbo in aad bid strategiga aad ku bilowdo manual haddii xayeysiinta muddo ay socotone waxyaabahaas kale automatic waa tijaabin kartaa laakiin automatically haddii aad iska samaysato account lacag aad ku shubto aad website xayeysiin u saarto asiga oo kuu saaro maximize conversion laga yaabay 300 400 oo kaaga qaato wax result aysan ka imaanin lacagtaas waxaa ugu deeqday Google waxaa wanaagsan marka qof yaqaan inaad la kaashato muuqaalkan intaas ay ku soo gabagabeynayna wixii aad fahmayso commentiga noogu reeb si aan mar walba iskugu dayno in aan ku sii fahansiino intii karaankeena ah ama intii aqoonteena ay gaarsiisan tahay wixii aan qalday shaydaan ay ka ahaadeen wixii aan saxnayna min Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.